وعن ونكسن صاحب يرسول ودا حلي كستا يسوى البعض نودا ونسان ومقال كان يدكو سو غادايو المقال كان waxaynu ku lafagurayna qodobo dhowr ah dagaaladii TPLF ta iyo sidoo kale dawladda dhexe ee Itoobiya halkii ay marayaan in khasaare nuuci ah ayaa hadda jira sidoo kale talaabooyin hor leh ay dawladda Itoobiya qaaday dhinacyada TPLF iyo sidoo kale beesha caalamka warar kala duwan ayay ka soo saareen xaaladdu waa sidee hadaba arrimo hor leh ayaa ka soo cusboonaaday maxaa hadaba ka socda gudaha deegaanadaasi sida khaaska ah deegaanada ay ka dhaceen khasaare nuuci ah ayaa ka jira dagaaladaasi cabdixamiid khadka ayaan hay saaxiibayaal fadlan nagu soo biro subscribe sar channelka na soo follow gare like sar muuqaalkana si share garo la wadaag saaxiibadeena ma doonaysaa adeeg la hubo oo la isku halayn karo cabdiraxiin digital money exchange ku xidhnow oo ka sarrifo markasta iyo meel kasta sariflaha cabdiraxiin digital money exchange wixii inta faahfaahin dheerna kala xidhiidh lambarada shaashada kugu qoran waxa laga soo waramayaa in ay hadaba dagaallo waaweyn inay ka hulcaan aad looga cabsi qabo shalay maanta iyo sidoo kale in maalmahan baax isku hor imaadiyo hor leh ayaa ka socday deegaanka Tigrayga deegaanka kamid ah sidoo kale in deegaanka Tigray oo hadda aanay ka talinin dawladda dhexe ee Itoobiya ayaa war saxaafadeedyo kala duwan soo saaray si arintani ay uga hadlaan waxay dawladda dhexe ku eedeeyeen in ay jabisay dawladdu heshiiskii Imperatoria ee 2022 ee u dhaxeeyay dawladda Itoobiya iyo sidoo kale jabhadda TPLF ee gobolka Tigray waxay sheegeen oo ay dawladda dhexe ku eedeeyeen TPLF in ay dawladdu hulcinayso in dhamaanba in ay la dagaalamayso in kaabayaasha iyo adeegyada bulshada ee deegaanka Tigray waxay sheegeen in laga joojiyay adeegyada bulshada sidoo kale in shidaalka laga hakiyay deegaanka Tigray iyo in adeegyada bangiyada iyo sidoo kale lacagaha laga joojiyay in anteenada iyo adeegyada bulshada inta badan dawladdu ay carqaladeynayso sidoo kale meelaha qaar war aanan ay ka jawaabin dawladda dhexe oo sida warbaahinta taageersan ama ku hadasha afka TPLF ay sheegtay waxa la sheegay in ay gabadfallo kala duwan ay wali geysanayaan ciidamada militariga Itoobiya ee ku hawlan la dagaalanka TPLF ee dagaalka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo waliba maleeshiyadka Tigrayga ee TPLF ta dagaallo hor leh ayaa hadaba ka soconaya baa la leeyahay xuduudka Suudaan iyo sidoo kale Itoobiya ama dhinaca waqooyiga ay gobolka Tigray iyadoo oo ay laga cabsi qabo in ay dhibaatooyin hor leh halkaasi ay ka dhacaan oo ay ku fidaan deegaanada kale inteeda kale sidoo kale dawladda Itoobiya oo in yar ka hadashay ana faahfaahin dheeri ah ka bixinayna waxa ay sheegtay in ay wali socdaan in la ciribtiro maleeshiyadka iyo waliba jabhadaha dagaalada kula jira ee dawladda dhexe ee Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo waraysi siiyay telefishinka Ahmarada ayaa hadaba dhinacyo badan oo uu kaga hadlay waxa ku sheegay in ay hadaba jabhadaha TPLF ta iyo sidoo kale Faano iyo dhamaanba jabhadaha dagaalada kula jira dawladda dhexe ee Itoobiya ay isku garabsanayaan sidii ay u burburin lahaayeen awoodda dawladda dhexe ee Itoobiya iyo sidii ay waxyeeleyn lahaayeen ama ay u dagaalami lahaayeen Abiy Ahmed iyo xukuumadda dalka Itoobiya ee hadda talisa Itoobiya dhinacyo kala duwan rabshado iyo waliba sidoo kale qalalaaso ayaa gudaheega ka jira beesha caalamka iyo waliba caalamkana waxa ay la tusaa ama la og yahay in uu yahay wadan horumar leh aad u kala socda inkastoo ay muuqdaan ifafaalooyinka iyo isbedelada xukuumadan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee loo qaaday dhinacyada horumarka dhismaha iyo kor u qaadida dhaqaalaha ee dalkaasi Itoobiya haddana waxa jira in cadaadisyada iyo dhibaatada siyaasadeed ee ka jirta gudaha dalkaasi iyadoo oo hadda waliba ay dawladdu ku jirto xilli kala guur ah ama isgoys halis ah ay marayso oo ay dhamaanba aan wali la dhisin dawladda cusub ay ka sii talin doonta dalkaasi kadib markii dhawaan ay qabsoomeen doorashooyinkii dalkaasi ka qabsoomay hadda Addis Ababa waxa ka socda bishan aan ku jirno shirka wada tashiga qaran oo u dhaxeeya dhamaanba bulshooyinka kala duwan ee deegaanada Itoobiya deegaanadu dhamaan Addis Ababa ay ku shirayaan kulamo waaweyn oo looga arinsanayo ajendaha siyaasadeed ee dalku uu gali doono ayaa looga arinsanaya arintan waxa ku jirta arrimo kala duwan oo hor leh ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisu waxay ku goodinayaan isla markaasina ay in badan ku celcelinayaan in geopoliticska ama juqraafiga dhulka Itoobiya wax laga bedelo in Itoobiya ay hesho marin badeed iyo meel ay ka neefsato waa sida hadda socota ee Abiy Ahmed waxa uu leeyahay
leeyahay xoog iyo xeeladba waa inaanu bad helna arrintan si loo suuro geliyo xilli kala gurana ay marayso dawladdu si ay u sii jirto waxa la soo dhigay ajendayaal kala duwan si Ethiopia haddaba ay u noqoto Ethiopia isku duuban Abiy Ahmed waxa uu qaatay istiraatiijiyad siyaasadeed oo geopolitics uu ku jiro isagoo oo garabsanaya isla markaasina isgarab wada wadamada jaarka sida Soomaaliya iyo sidoo kale Djibouti iyo wadamo la mid ah iyadoo oo geeskani Afrika wadamada qaar ay hayaan isla markaasina laga cabsi qabo in ay colaad hor leh ay dhaxmarto sida Eritrea oo kale iyo waliba Suudaan oo haddaba dhinac ah sidoo kale waxa jira awoodo iska soo horjeeda oo dhinaca Masar Turki iyo sidoo kale Soomaaliya iyo Ethiopia iyo geeskan Afrika oo u kala qaybsan siyaasad ahaan geopoliticska iyo heshiisyada la wado in Ethiopia ay hesho marin badeed oo iyadna ah in arintani arin marnaba aan laga tanaasulayn ay u muuqato Somaliland iyo sidoo oo kale dhinacyadan iyo in la itiraafay in halkan ay Ethiopia bad ka hesho Soomaaliya in la saaxiibto arrimo badan oo kala duwan oo hor leh ayay Ethiopia dhaxdabaalanaysaa laakiin halistu waxa ay ka jirtaa gudaha dalka sidee ay xaaladdu noqon doontaa haddaba saaxiibayaal qodobo aad u waaweyn ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijyadeena dambe oo ka jira gudaha Ethiopia haddaba TPLF waxay sheegayaan in arintani ay tahay arin walaaceeda leh beesha caalamkana waxay ogeysiinayaan in arintaasi la ogaado isla markaasina la aqoonsado in ay xaaladdu halis tahay ayna sii fidi karto sargaal sare oo ka tirsan jabhadda xoreynta deegaanka Tigray ee TPLF oo lagu magacaabo Emmanuel Azafa ayaa eedeymo hor leh dusha uga tuuray dawladda federaalka ah ee Ethiopia waxaana ku eedeeyay oo sheegay in weeraro hor leh ay ku qaadeen gobolka Tigray ilaa iyo haddana dagaalku uu socdo waxa uu intaasi ku daray qoraago in xiisadu ay soo bilaabantay bilihii la soo dhaafay qoraalkiisa waxa uu ku sheegay in ciidamada dawladda federaalka Ethiopia iyo kuwa Tigray ay isku hor fadhiyeen xuduudaha gobolka Tigray labada dhinacna ay midba midka kale ku eedeynayay in ay doonayaan inay si cusub u bilaabaan dagaalada halka uu dagaalku ka dhacay sida uu sheegay Emmanuel Azafa dagaalku waxa loo adeegsaday baa la yiri hoob culus Emmanuel Azafa waxa uu sheegay in ay haddaba dagaaladu ka socdaan galbeedka gobolka Tigray dhulka ay isku haystaan deegaanka Axmarada isla markaasina ay maamulaan Axmaradu waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu intaasi ku daray dawladda Ethiopia si rasmi ah arintani wali uga maysan jawaabin iyo eedeymaha hor leh ee loo jeediyay ee ku saabsan xaaladda in ay dagaal ku qaadeen oo iyagu ay bilaabeen jabhadda gobolka Tigray ee TPLF haddaba wakaaladda wararka AFP waxay sheegtay in ay xiriir la sameysay afhayeenka ciidamada Ethiopia isla markaasina si uu jawaabo eedeymahani hase yeeshee waxa la sheegay in uu ka gaabsaday arintaasi oo wax jawaab ah ka bixin jabhadda TPLF oo war kale ka soo saartay ayaa haddaba waxay sheegaysaa in gobolka Tigray ay cadaadis iyo dhibaatooyin ku haysay muddo dheer dawladda federaalku jabhadda ayaa haddaba waxay dawladda dhexe ku eedeynaysaa in ay sare u qaaday colaadda isla markaasina ay dhibaato hor leh ku haysay muddo dheer gobolka Tigray oo ay go'doon ku jireen gobolkaasi haddaba arrimo hor leh ayaa ka soo cusboonaaday maxaa haddaba ka socda gudaha deegaanadaasi sida khaaska ah deegaanada ay ka dhaceen khasaare nuuci ah ayaa ka jira dagaaladaasi sidoo kale gobolka Axmarada dagaalo hor leh ayaa iyagana ka socda oo goosgoos ah jabhadda Faano ayaa wali la dagaalamaysa ciidamada dawladda dhexe ee federaalka Ethiopia Abiy Ahmed oo ka hadlay maalmahan ayaa waxa uu sheegay in ay haddaba isgarabsanayaan dhammaanba jabhadaha hubeysan ee ku sugan gudaha wuxuuna sheegay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono sidoo kale waxa uu sheegay in carqabad kasta oo ay ku sugan yihiin iyo isku kasto ay marayaan aanay u joojin doonin arintaasi tallaabo sharci ahna ay ka qaadi doonaan wasida uu sheegay haddaba waxa uu intaasi ku daray inay xiriir kala duwan la sameeyeen jabhadda Faano iyadoo oo saraakiil ka mid ah jabhadaasi uu sheegay Abiy inayba iyaga u shaqeeyaan isla markaasina ayna wax dhibaato ah gaarsiin doonin wasida uu hadalka u dhigay halkan ayaynu idin kula wadaagi doonaa Cabdixamiid Khadka ayanahay waxaan wanaagsan saaxiibayaal